tan koowaad waxaa waaye alxuriya almutlaqa azaa'ida ilmaha inaad xor fooq alxad ka dhigto oo wuxuu doono iska sameeyo xalaal iyo xaraan oo loo abeerin waalidka kala xisaabtamin kana xakameyn uusan ka celin xoriyada zaa'idka waxay keentaa in la isku tacadiyo keentaa waxayna ku badan tahay hadda baadiyahay ku badan tahay dadku ma kala cabsadaan in qori lagu kala baqamo ogi markaas oo qof kala ku xadgud soo boobo wuxuu ka qaadan kara ka dhaco gacantiisa ku jiro xoriyada zaa'idka marka waxay keentaa oo mudlaqa ah oo qofka aan oo dawlad ka baqay uusan jirin qof kale ka baqay uusan jirin wuxuu doono qofka inuu iska sameeyo qofka inuu iska sameeyo dadka kale lagu xadgudbo asaga naftiisa inuu ku xadgudbo ama dilka uu u sahlanaado tan labaad waxaa waaye ihmaal qarasul iimaan cunuga inaadan iimaan ku beerin dilka inuu xaaraan yahay zinadu inay xaaraan tahay sariqada in wax la boobo inay xaaraan tahay dadka kale in lagu tacadiyo inay xaaraan tahay been abuurka inuu xaaraan yahay waxay qisaasta xuduudda axkaamta shareecada ay samaysay qisaasta maxaa loo sameeyaa dadka marka isku xadgudbaan in loo kala qisaaso nafsi binafsi hadduu qofka qof u dilo hadduu il ka rido hadduu ili ka rido hadduu gacan ka gooyo islaamka qisaasuu sameeyo xuduudana umada ilaahay lagu xadgudbo qofka zino ku dhaco ama sariqo ku dhaco wixii asaga dambi ku waajibay wixii asaga ku waajibay taasna waxaa marka qarasul iimaan qofka inaa ku beerto qofka hadaa waxaan samayso waxaasaa kugu waajibaya haddaa wax xado gacanta lacagtaada intaas intaa la ekaata gacantii lugta waa laga jaraya oo marka la baro axkaamu sariqa la baro axkaamu lqatli la baro dilka iyo maxay qisaastiisa axkaamtiisa iyo diyada la baro axkaamu zina la baro marka qofka iimaan ka celiyo waxaas waa inaa ilmaha ku beertaa haddii marka iimaanka uu daciif yahay qofka jariimada waa u sahlanaanaysaa inuu nafsadiisa dembi ka galo inuu ilahay ka galo inuu ummadda kale ka galo alqudwa sayi'a wasuxba sayi'a saaxiibka xun iyo ku dayashada xun hadduu guri xun cunuga ku barbaaro ama waalid xun uu ku barbaaro ama waalid wax dilaya ku barbaaro ama waalid wax dhacaya wax boobaya ku barbaaro ama xatooyo uu ku barbaaro khalaas cunugaasna asagana wuu qaadanaya oo marka ku dayashadii iyo moodhalkii baa halaabay marka suxb ama dadku markii cunugaadu soo kaagacayba dad xun la saaxiibay bii'adu degan dad xunaa degan adiina maadan controlin ma sii daba kicin dadka cunuga la socda maadan fiirinin saaxiib xun buu yeeshay wax walbaa la baray marka shiishadaa la baray dilkaa la baray gacan qaadkaa la baray midi wax lagu dilaa la baray in la dagaalamo waxyaaba marka aan qofka bani aadanka u habooneen yaa marka maxaa ka halaabay ku dayashadii tusaalihii ayaa ka halaaba markaa عدم إشباع العاطفة نحرس الآن إن لوسو كوريا نحرس الآن لوسو كوريا وعاطفة على بري أن لا نحن أن لا بحين أسجن نحو محيها وحكي كنسا قفكي إنه محيها قفا قسوة قف أدق وقلب سن إنه نقضه إشباع الحاجات المادية باهديس إنا للدولين لعقتي على الجود بي وحقوق بهنا أرد بحي على الجود بي داودي على الجود بي مركا إنه وحضو إنه وحبابه إنه وحقيانه يقول الله مركا عنق مجرم كصابح عنق مجرم وكصابحه مدمن المخدرات أصير بدراج برته دراج ممكن عنا وحبود دلايا دلا حبود دلايا يا محرمات كي برته يا شيشة دي وحياة قفكم مسكحة يسكعيا باب إنس وبرته مركو برته وحام حكينا إنه أسجن محيته وهذا مركي وحي كتم بطان وجركي سدراجات يكون برته إنه واحد له مسكحة سنة مقنته مسكحة سنة مقنته هاي وما كقف لقى على الشرير ونقض شرتي سبنته هاي إذا وحياة كانوا تاني هذا قدام بس وحاوي القسوة الشديدة فوق الحد إنه جينا دكتاتور ما قام بر ونحرس درا أكو قبطه dad badan oo dictator noqdo wax dulmiye oo dad badan xasuuq waxa la lahay yaraantoodii baa lagu dulmiyay yaa kamid ah Hitlerka Jarmalka maxay ahayd dadka baabiye lahay yaraantii lagu dulmiyay dadka dad badan xasuuq markaa waxa kamid ah Atatürkiga dowlad Cuthmaaniya riday asagana macallin baa si xun u naxariis daraa kula dhaqmi jiray garaaci jiray dad badan oo xasuuq marka yaraanta 10 sano oo horeys cunuga hadii si naxariis daraa lagu barbaariyo asagana wuxuu noqon qof aan naxariis lahayn dadka kale u nixin kuna tacadiyo noqonaya idan waxay keenaysaa in qofka cunuga inuu jariimo iyo mujrim uu noqdo qof dambiila dadka dambiga ka gala asagana ka galo marka ku soo celino الحرية المطلقة الزائدة فوق الحد waxay keentay cunuga mujrim inuu noqdo ihmaalu gharas al-iimaan iimaanka ku beeritaankiisi qalbiga inuu beer inuu waalidka uu ka gaabiyo القدوة السيئة والصحبة السيئة dad saaxiib xun iyo ku dayasho xun inuu helo عدم إشباع العاطفة عاطفة إن قف نحرس رحمة إن لجو بربارين حاجات المادية وحياة أباهي إن الله دم يسترين أو لجو دبا وما كأتوجن ما كانت قيانة وكانت إنه وحبوابة وكانت مخدرات كمحرمات كإنه إشيشة وحياة مسكحة بدله إنه جوكتاي وجرو يكون حبرته أما والدك وكبرته أما درسك وكبرته أما قف استعمالته ولا صاحب الله برا أيضا وحي كانت عنه جمجر كوسا بحاله القسوة الشديدة فوق الحد دكتاتور نمدي نحرس درada فوق الحدka inuu inuu xadka ka baxo iyadana keenta intaas marka waxyaabo ka dhigi kara waa cunuga inuu jariimo iyo dambiga iyo xaramaadka inuu ku dhaco inay u sahlanaato marka sifooyinkaas marka waa in ilmaha ka ilaalisaa tusaale wanaagsan naxariis xaqooda kaamil ay ka helaan ama qofka barbaarna uu ka helo
si uu cunuga waxyaabahan oo kale uga badbaado wallahu aclam applicationka Payc waa abaad ku dirsan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta qofka aad u diraysid waxay lacagtu ugu dhacaysaa telefoonkiisa haddaba ha moogaan applicationka Payc oo kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka